daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka falaqaynta Bollywoodka. sanadkan waxaa la bixiyay Filmfare Awards markiisii 26aad waxaana atoraya tirishada ugu wanaagsan ku guuleystay Aamir Khan iyo Alia Bhatt. aktarada abaalmarintan ugu badan waa Dilip Kumar iyo Shah Rukh Khan oo ku guuleystay min 8 jeer. Salman Khan ayaa ugu horeeyay aktarada aan wali ku guuleysanin wuxuuna u tartamay 10 jeer. sidoo kale liiskan waxaa soo galayo Ajay Devgan, Govinda iyo Akshay Kumar. daawadayaal waxaana naga xasuusin ah sanadkan inuu qaatay Aamir Khan oo ah markiisii saddexaad oo ku guuleystay abaalmarintan. haddaba daawada la soco xidigaha aan wali ku guuleysan Filmfare Awards qaybtiisii Best Actor rag iyo dumarba. Salman Khan wuxuu u tartamay 10 jeer walina kuma uusan guuleysanin. sidoo kale Govinda wuxuu u tartamay 5 jeer walina kuma uusan guuleysanin. Tabu ayadana waxay u tartamtay 5 jeer waligeedna kuma guuleysanin. sidoo kale Akshay Kumar ama Mr. Bond wuxuu u tartamay 4 jeer walina kuma uusan guuleysanin. Dharamandar ayaa u tartamay 4 jeer waligiisna kuma guuleysanin. sidoo kale Ajay Devgan wuxuu u tartamay 7 jeer mana uusan ku guuleysanin wali. sidoo kale Anushka Sharma ayaa 4 jeer u tartamtay waligeedna kuma guuleysanin. sidoo kale Abhishek Bachchan ama wiilka Cali Dheere ayaa u tartamay 3 jeer waligiisna kuma uusan guuleysanin. Katrina Kaif ayaa u tartamtay 2 jeer walina kuma guuleysanin. sidoo kale Saif Ali Khan ayaa u tartamay 2 jeer waligiisna kuma uusan guuleysanin. haddaba daawadayaal aktarkee ayaa mudnaay in uu Filmfare ku guuleysto qaybtiisa Best Actor intee jeer ayuuna mudnaay. daawadayaal waxaan ila socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Nadara waxaa fududeeyay Som Films. sidoo kale barnaamijkan gacan libaax waxaa ka qaatay saaxiibkayga Saabir.